kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan. halkani waa Cabdullaahi Yare official. waxaanu ka falanqaan doonaa muuqaal xiiso badan halkaasi oo ahaa muuqaalkii aabi taariikhda ugu yaabka badnaa kadib markii fanaanka caanka ah ee reer Jabuuti Cawaale Aadan uu ku soo bandhigay bandhig faneed cajiibkiisa wata. Cawaale Aadan oo ku dhawaad bil iyo isbuucyo ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa uu socdaalkiisa ka soo bilaabay magaalada fanka looga haray ee Hargeysa ee maamulka Somaliland. Cawaale iyo Masasxiis oo dhawaantaani halkaasi ku aqal galay ayaa waxa uu gudaha Muqdisho soo gaaray horaantii bisha hadda aanu ku jirno. Cawaale oo dadweynaha magaalada Muqdisho siyaabo kala duwan ula kulmay goobaha dalxiisyada ayaa waxa hoolka weyn ee Sahal ee gudaha Muqdisho uu ku soo bandhigay maalinimadii ciida koow ay ahayd bandhig faneed cajiiba. Cawaale agtiisa waxaa ka muuqanayay wiilka da'da yar ee Alfanaan Dooli ee aad cajiibka codkiisa u yahay. Cawaale oo hees cajaayib wadata ku soo bandhigay taasi oo dadka inta badan ay ku sheegeen in heestaasi uu qaaday maalinkii ay isguursanayeen fanaanada iyaduna caanka ah ee Masasxiis. Cawaale Aadan oo fankiisa dadweynaha inta badan ay garan og yihiin isla markaana dad badan ay yaqaanaan xilli uu ku soo heesi jiray macawisaha iyo fanaanadaha walow geedaha dushooda uu ka dul heesi jiray. Cawaale Aadan ayaa iminka Muqdisho waxa uu ku soo bandhigay bandhig faneed cajiiba oo ay ka soo qayb galeen fanaaniin ay u badan yihiin reer Muqdisho, kuwa Hargeysa kala yimid iyo kuwa kale badan oo sugaanta xamariga aad ugu yaqaan isla markaana aad ugu caan baxay. sidoo kale Cawaale dadka kala qayb galay fanka ayaa waxa kamid ah dad yow baraha bulshada caanka sida team wax kale iyo teamka TikTok oo ay ugu horeyso Mrs World iyo asxaabteeda. ha ka reebine waxaan halkaasi ka marnayn oo kala qayb qaatay bandhig faneedka gudaha Muqdisho uu ku soo bandhigay fanaanada caanka ah ee Axmed Bila iyo qaar kale badan oo halkani aan ka xusi karin iminkadan. si kastaba ha ahaatee bandhig faneedkan ayaa waxa lagu saleeyay bandhig faneedkii abid ugu qaalisana tan iyo bandhig faneed Muqdisho intii lagu qabanay. Cawaale gadaashiisa waxa ka dulbabanay calanka ay caanka ku yihiin ee astaanta u ah dawladda Jabuuti ee aan walaalanahay. si kastaba ha ahaatee Cawaale Aadan ayaa ah fanaan in muddo ahba fanka ku soo dhex jiray isla markaana ay dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay aad u jecel yihiin. waxyaabaha cajiibka ee laga diiwaan galiyay ayaa waxa kamid ah in mid kamid ah taageerayaashiisa oo kaamirada markaasi telefoonada shaashada isaga duubayay uu ku sigtay in uu dharbaxshayo kadib markii xamaasadu ay qaaday isla markaana ruux walbaba uu la galiyay sawir qaasa. daawade halkani waa Cabdullaahi Yare muuqaalka iyaga haduu ku soo gaaro share gareys meel fog u gaaro waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka.